dadka barakcayaasha ee ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa dhul la dejiyay u deeqay hay'adda IOM oo kamid ah hay'adaha deeqda bixiya isla markaana ka howlgala magaalada Kismaayo. dhulkan ay bixisay IOM ayaa waxa si wada jir ah u dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo. ugu horeyn goobta dhagax dhiga ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Yusuf Timajile wuxuuna ka warbixiyay sida loo dejinayo dhulkan dadka barakcayaasha ah. waxaan halka saaka halka waxaan u joognaa inaan sida arkaysaan baan dhagax dhignay guriyo loo dhisayo dadka barakcayaasha ah iyo dadka ka soo noqday xiriyaha qaxootiga guriyo ay u dhisayso hay'adda IOM oo laga dhisayo magaalada Kismaayo meesha haddaan taaganahay oo arkaysaan guriyahaas waxa weeye qofka waxa la siinayaa dhul 12-15 cabirkiisu yahay oo isagu iska leeyahay guri baa looga dhisayaa macnalo oo fiican dhulkiisa inta ka hartayna isaga wixii farsamo ah oo ka dhisanayo iyadoo mar walbana la joogo wixii macaawino ah oo ku saabsan wixii kala bilaad ku noolaan lahaa sida loogu dhisi lahaa sida musqulaha iyo wixii la mid ah. waxaa isna hadalka qaatay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni oo u mahadceliyay hay'adda IOM oo dhulkan bixisay. mubarak Ramadaan Kariim marti fiican baa inoo joogta inaanu gudano ayadana khayrkeeda iyo ajarkeeda Ilaahayna waafajiyo ayaan leeyahay. marka labaad sida uu sheegay gudoomiyuhu mashruucani waa mashruuc ah tijaabo oo la yiraahdo pilot project oo ka kooban 300 oo guri oo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed barakcayaasha reer Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. waa mashruuc tijaabo waxaan rajaynaynaa inuu meesha hadda uu jooga halka qol ah inuu noqon doono in ka badan inuu noqon doono haddii la yiraahdo muddo dheerna waa laga soo shaqeynayay wajiyo badan buu soo maray dadka jiinkad baa loo jiray kor iyo hoos waan diidnay mar labaad waxay soo jeediyeen in laga dhiso la sameeyo iyadana in beey ahaan iyo dhirtii la gurahayo uma fiicnaano niri marka waxaan isla afgaranay in laga sameeyo dhagaxaas bulkeetiga hadda aan dhagax dhigayno runtiina uu noqon doono mid faa'iido badan dhali doona qofku dhulka asaga iskale sida uu sheegay gudoomiyuhu 15 lagu dhufto 12 dhul isagu isku leeyahay haddii hal qol ama laba qol looga dhiso wixii kale inuu asagu dhisto maadaama dhulkiisii qofkii uu joogo oo uu san ahayn qof qaxooti oo wadan kale shisheeya joogo uu san noqonin inuu wadankiisii joogo hal meel oo gala haddii la siiyo roobkii iyo dhaxantii laga siiyay wixii kale inuu asagu fidsadaa loo baahan yahay mar walba inuu wax walba la bariyo waxa ka fiican haddii hal mar lagu caawiyo inta kale adigu inaa is caawisid maadaama wadankaaga aad joogto qofka Soomaaliga inuu saa ku baraarugo waa loo baahan yahay. dhulkan la dejiyay dadka barakcayaasha ayaa waxa uu ku yaala duleedka magaalada Kismaayo. Zakariya Abdiqaadir Karzai TV caalamiga bulsho magaalada Kismaayo.